kulankan oo maanta si rasmi ah uga furmay hotel Mansour ee magaalada Berbera ayaa waxa ka qayb qaadanaya hay'adaha laamaha dawladda, hay'adaha caalamiga ah iyo ururada madaxa bannaan iyo ka shaqeeya deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay isla markaana si rasmi ah u furay gudoomiyaha gobolka Saaxil duqa Berbera iyo xubno ka kala socday hay'adaha laamaha dawladda, afhayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno kale. ugu horreynna waxa ka warramay kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo sidoo kale hay'adaha laamaha dawladda ee ka qayb qaadanaya ujeedada ka dambeysay isduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saaxil Cabdullaahi Ismaaciil Yaasiin. ujeedada ugu weyn waxa weeyaan sidii aynu xoojin lahayn xiriirka ka dhaxeeya hay'adaha caalamiga iyo kuwa wadaniga ee degan gobolka iyo hay'adaha dawladda sidii wada shaqayntooda aynu u sii xoojin lahayn. ujeedada labaad ee sugnimo waxa weeyaan sidii aynu u ogaan lahayn mashaariicda horumarineed ee gobolka ka socda. waxa iyaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyay Mariyaha kaydka hamaha shidaalka ee Berbera Sheekh Salebaan Siciid Cali iyo afhayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Salebaan Dhuxul waxaana ka warrameen kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo sidoo kale shaqada ay bulshada u hayaan iyagoo soo jeediyay in ay shaqadaasi ay hayaan ay ku daraan mas'uuliyad iyo in lagala xisaabtami doono isla markaasina ay adkeeyaan xiriirka ay la leeyihiin hay'adaha kale ee iyagu ay la shaqeeyaan. waxay soo jeedeen hay'adaha islaamaha dawladdu inay adkeeyaan amniga sidoo kale ay ka qayb qaataan barnaamijyada lagu horumarinayo dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxda dawladda runtii meel kasta inay horumarto ay himiladiisu tahay inagoo himilada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka uu ka leeyahay xaqiijinayna ayaa shirarkan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ay dawladdu la galaysaa ayuun bay ahdaafta madaxweynaha sidii loo xaqiijin lahaa bay runtii ka turjumaysaa. waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda qorsheynta oo runtii waxqabadkeega iyo waxyaabaha dalka ay ka wadaa ay yihiin qaar muuqda. hadduu qaran waayo qorshayn meeluu socdo iyo meeluu ka yimid la kala garan waayo markaa tallaabadii hore socodku way hakanaysaa. ummad waliba markay leedahay meel ay ku socoto hiigsanayso ayaa wax la qaban karaa. duqa Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isaguna ka mid ahaa mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa waxa uu tilmaamay in hay'ad walba ay kula xisaabtami doonaan waxa ay u qabato bulshada isla markaasina ay la shaqeyn doonaan. waxaana uu si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo iyadu horumarinta gobolka Saaxil ka qayb qaadatay iyo hay'adahaasi qaarkood oo iyagu tilmaamay inay horumarinta ay kaalmaha koowaad ay kaga jiraan. iyo halkan laabta waxaad ku qarinaysaba ilaahay baa ogo xilkan aad ummadda u haysto waa maalmo waxaan dhammaanteen wada haynaa. maalmaha aynu hayno waa inaynu waxaynu ummadda gaadhsiin karno aynu gaadhsiinaa intii awoodeenna. isku xidhnaanshahana kolley barsaabka iga dambayn doonee hay-ad kasta oo joogta degmada iyo gobolkuba waa inay ku xidhnaadaan xafiisyada mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaaro oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay ujeedada ugu weyn ee kulankaasi ay u soo qaban qaabiyeen in ay salka ku hayso ilaalinta amniga iyo ka warhaynta hay'adaha kala duwan ee uu ka shaqeynaya deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil. hay'adda dawligeena inay mataqaanaa wada socdaan waxay qabanayaan iyo meel ay ka socdaan iyo wax ay jiraan aan la ogeyn. gobol iyo degmo ahaanba ayaan ugu yimid runtii iyagoo aan gobol iyo degmo warkeenayn baan meesha ugu yimid. taasina wax soconaysa laga bilaabo maantada aan wada hadlayno wixii ka dambeeyay ma jirto. hay'ad kasta waxaan ku adkeenayaa oo dawliya wasaaradda doontaa noqoto hay'adda kale ee ku lamaan ee lamaanaha ay yihiin ay wada shaqaynayaan ee aan gobolka soo marin ee aan degmada soo marin hay'addaasi waxba kama jiraan joogitaankeega halka. kulankan ayaa socon doona muddo 2 maalmood iyagoo halkaasina warbixino kala duwan iyo waxqabadyadooda laga dhageysan doono hay'adaha kala duwan ee ka soo qayb galay. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.